25 bishan Maarso sanadkan 2019 ayaa maamulka gobolka Banaadir furay barnaamijka hibeeye ee bixi dhiigaaga. Maamulka gobolka Banaadir oo uu horkacayo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariisow oo ay weheliyeen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo wacyigelinta Marwa Basma Caamir Axmed iyo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda Hussein Maxamed Nuur ayaa si wada jira u daahfuray barnaamijka hibeeye ee bixi dhiigaaga. barnaamijkan hibeeye ayaa in muddo ka soo shaqeynaysay waaxda caafimaadka ee gobolka Banaadir iyada oo markaasi la sheegay inuu muhiimad gaar ah u leeyahay bulshada ku dhaqan guud ahaan gobolka Banaadir. murayati magacaso maalidiyo Soomaalidiyo madasha kulan siisayo qaranka laga maamule Muqdisho waa murayati magacaso maalidiyo Soomaalidiyo madasha kulan siisayo qaranka laga maamule furitaan muhiim ah una bulshada ku nool caasimadda gobolka Banaadir sidaan ognahay maalin walba dhibaato dhacdo sida xildhibaan Canab ee sheegtay dhiigga inoosan naga bixin horta aan ku dadaalna ammaanka laakiin dhibaato mar walba way dhacaysaa haddaan nahay hooyooyinka ku nool caasimadda gobolka Banaadir annaga u badan dadka u baahdo dhiigga maalin dhaweyd waxaa jirtay isbitaal Yardamiil anoo joogo gabar dhiig bixaysa ayaa la kulmay oo foolanayso agaasimaha caafimaadka dawladda hoose xamraa soo wacay aan dhahay gabadhaas dhiigeeda noocaas waay agaasimsideen wax yeelna dhalinyaro badan oo dhalinyaradan kamid ah lagu soo xiray alxamdulillaah rabbil caalamiin waa la badbaadiyay ilaahay wax badbaadiyo marka waxaan rabaa dhalinyarada inaan la hadlo oo dhahayo HB-geyga waa yar yahay dhiiga ma bixineyno qofka dhiiga hibeeyo ama sadaqeeyo waxa ugu ajirka badan oo la bixiyo dhiiga dhiiga markii la sadaqeeyo caafimaadkaaga xataa wuu kordhaa dhiiga markii la bixiyo wax badan oo jirkaaga ka dhinaa xataa ayaad ku helaysaa marka waxaan rabaa dhalinyarada inay noqdaan wax walba annaga markaan hadlayno ama madaxda qaranka markay hadlayaan waxay dhahayaan 75% dalkan waxa u haray waa dhalinyaro ayaa loo baahan yahay marka dhalinyarada waxaan rabnaa dhinac walbaba inay noqdaan kaalinta koowaad ayaga noqdaan hogaamiyaasha dadka badbaadiyaasha intaba inay noqotiin dhiigana inaad sadaqaysataan in la isgargaaro la isgurmado gurmadkana arrimihiisa waa la socotaan oo maamulka gobolku aad iyo aad buu uga shaqeeyay ha noqoto ambalaasyo ha noqoto dibdamis ha noqoto xarumo cusub oo la sameeyay ha noqoto tababar iyo dhalinyaro badan oo shaqo abuur loogu sameeyay arrimahaas haddana weli faanoola farkama qodna inta dhimanna waa sii dhammaystiraynaa mar kale waxaan u mahad celinayaa waaxda arrimaha bulshada oo barnaamijkan muhiimka soo qaban qaabisay agaasimaha waaxda caafimaadka dhammaantiinba iyo dhalinyarada halkan u joogta maanta inay dhiirigeliyaan isla markaana ku bogaadiyaan Soomaalida intooda kale inay kaalintooda ka qaataan sidaan ognahay ma leenahay bangiga dhiigga insha Allah wasaaradda caafimaadka ayaan ka sugaynaa inay bangiga dhiigga awoodda ay isku geyso hadda shaqadeeda ay qabanaysa qorshaha hadda ee wada ee tahay in bangiga dhiigga la helo keedka markaas dhiigga aan yeelanayno ee noqonayso bangiga dhiigga laakiin inta ka sokayso in annaga is caawino annaga wax isku qabano annaga is badbaadino qofkeena dhiban aan ku fiirsanin marka waxaan rajaynayaa insha Allah dhalinyarada ku nool caasimadda gobolka Banaadir inaad hormuud ka noqotaan meel kasto dhibaatada ka dhaco ama message-ka ku soo dhaco inaad ka jawaabtiin inaad isdiiwaangelisiin dhiigoona degma isku diiwaangelisaan aad degmadii iyo wax isku samaysaan dhiigiina sida loo ogaado oo qofka walaalkaaga ku caawin karta ama ku badbaadin karta aadaan u soo dhaweynaa xafladaaneeti
insha allah wax badan ayay ka faa'iidayaan dadka ku nool caasimadda gobolka banaadir